السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا Somali Technology أسبوعا واحد اللي وذاقيا حق سابسن فيسبوك أنت بدن فيسبوك أيان استعمالنا فيسبوك وها استعماله 2.2 billion users دونيدو دان اسكدر فيسبوك حق هايستا أما أسوق دان دومينيت كريا سوق السوشيال ميديا أسوق لوضع كوني لبي توانكي لو رجع يبسدي انستغرام labada kun iyo afar iyo tobankiina iibsaday waa WhatsApp soo khadka uga saaro Fiber iyo wixii la mid ah. Hadaba Facebook qaab nooc ah ayuu lacag ku sameeyaa. Inta badan boqolkiiba boqol adeegyada Facebook uu soo saaro ama bixiyo wuxuu ka dhigaa free mid qof kasta uu isticmaali karo sidoo doona uu isticmaali karo. Okay, wali Facebook lacag maada siin si adeegsa u isticmaashid. Sanadkiina mar ayuu soo saaray adeeg cusub sidoo userskiisa u kordhiyo ama u badiyo. Facebook wuxuu ku xiran yahay ama uu lacag sameeyaa userskiisa ama dadka asagu u yaqaano customer waa dadka adeegkiisa isticmaale. Hadaba Facebook laba hab ayuu lacag ku sameeyaa. Waa laba hab oo kali ah ayuu lacag ku sameeyaa. Hab koowaad oo ah xayeysiis ads advertisement inuu Facebook uu sameeyo shirkadaha ama dadka ganacsatada xayeysiis iyo advertisement oo sidee ah. Hadaba Facebook xayeysiiskiisu wuu badan yahay shuruudana uu ku xiran yihiin. Laakiin xayeysiisku waxa weeyaan Facebook inuu og yahay cid kaste xogna ka hayo. Okay, haddaan u baahnahay inaan soo saaro shirkad daabacada buugta Facebook ayaan lacag siin karaa. Waxaan oran karaa waxaan u baahnahay xogta inta qof oo arday ah oo ku nool magaalada Muqdisho ama magaalada Garowe. Facebook statistics-ka xogta ayuu siinayaa inta qof oo arday oo ku nool magaaladaas oo wax barata ayuu ku siin karaa. Xogtaas ayaa ka iibinaysa. Sidoo kale waxaad lacag ku bixin kartaa Facebook advertisement adoo u cayimaya inta qof magaalo hebel joogta oo rabtid inay arkaan ganacsigaaga iyo waxa ay iibinayso productigaaga ayaad lacag ku siin kartaa. Tabadate xogtaas ayuu qaadaya wuxuuna tusayaa dadka aad u cayintay magaaladii joogaan aad u cayintay ama goobta aad cayintay dadka jooga ayuu xogta tusaya asoo ka iibinaya numbers okay asoo ka iibinaya okay userska wuxuu u kala saaraa habab kala duwan okay laakiin number ahaan ayuu qofka xayeysiisanaya ama lacagta Facebook siinaya asagoo number ahaan ayuu uga iibiyaa kunkii qofba $1 ka siiya wax noocaas. Okay, sanadkii 2018 Facebook xog uu soo bandhigay waxa Facebook advertisement uga soo xarootay 55 bilyan baa uga soo xarootay iyadoo ka dhigaysa Facebook dakhliga soo kala 98.5 boqolkiiba iyadoo ka dhigaysa. Okay, habka labaad oo Facebook lacag ku sameeyo waxa weeyaan payment and other fees oo ah gift shopska iyo credit cardka. Okay, Facebook wuxuu leeyahay third developer party sida inaad gift shop aad iibsatid dabeed aad qof u didid iyo inaad credit card aad isticmaashid oo aad lacag ku bixisid. taas oo Facebook uu soo bandhigay xog uu soo bandhigay 2018 ayuu wuxuu ka sameeyay gift cardskaas iyo credit card wax ka wada gift shopskaas iyo credit card wuxuu ka sameeyay 825 milyan oo dollar buu ka sameeyay iyadoo ka dhigaysa 1.5% boqolkiiba 1.5 iyadoo ka dhigaysa dakhliga Facebook. Hadaba muuqaal ku xiga waxaan kula wadaagi doonaa xayeysiiska kala duwan hababka uu Facebook xayeysiiskiisa uu dadka u siiyo. Okay, different types of advertisement of Facebook ayaan kula wadaagi doonaa. Okay, Somali Technology waxaan ka codsanayaa inaad subscribe channel-kan video-gana sii share gareysay hadda ka heshay.